الآن أن القنبل تم زرع هذه القنبلة في سيارة أو تحت سيارة أحد ضباط الشرطة الذي كان من المفترض أن يذهب من ولاية ماردين إلى يا ربي إن أدله مدحوينها تركيا رجب طيب أردوغان اسكو ديدل أما خارجين أيو حالي كبد بادي مدحوينها تركيا أردوغان وردق دقا أو يابله أيا حالي في النماذي كسو ياري ودنك تركيا واسكو ديدل أو للربي إن نفط لغدا فيه مدحوينها تركيا سيدي أيا وحودعين بوليسكا تركيا أيا شيغي إنay si lama filaan ah ku heleen bombo ku rakiban mid ka mid ah gawaaridii waardiyeenaysay madaxweyne Erdogan oo socdaal ku mareeyay gobolka Sirti ee koonfur bari ee wadankaas bombadaas ayaa ahayd nooca lagu hago remote-ka sidoo ku waramay telefishinka TRT mid ka mid ah booliiska rabshadaha ka hortaga oo ku sugnaa goobta madaxweynuhu joogay ayaa gaarigiisa lagu rakibay bombadan askarigan booliiska ah ee gaarigiisa lagu rakibay bombada ayaa shaqadiisu ahayd in uu sugo nabadgelyada dadweynaha meesha isugu yimid madaxweyne Erdogan ayaa goobta u joogay si uu mashaariic xariga uga jaro koox ku takhasustay furfuridda miinooyinka ayaa isla markiiba ka hortagay inay qaraxdo bombadu oo halkaas Erdogan ku dhinto sidoo kalena ay ka dhacdo goobta xasuuq baan maadaama dad aad u fara badan ay ku sugnaayeen warbaahinta Turkiga ayaa faafisay sawirrada bombadii lagu xiray mid ka mid ah gawaaridii waardiyeenaysay Erdogan oo la doonayay in Erdogan lagu kharijiyo goobtaas booliiska Turkiga ayaa isla markiiba bilaabay howlgal ay ku baarayaan cidii bombada ku dhajisay gaariga warbixino hordhaca oo soo baxay ayaa sheegaya in bombada gaariga lagu la dhajiyay koronto madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay qorshahan la rabay in lagu kharijiyo oo nafta lagu dhaafiyo ayaa yiri mustaqbalka Turkiga boos uga ma banaana argagixisnimadu Erdogan oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri mar dambe u ogolaan mayno in la argagixiyo walaalahayaga mandiqadan ku nool madaxweyne Erdogan ayaa shalay wuxuu xariga ka jaray warshad laga furay gobolkaas oo ay wada leeyihiin Turkiga iyo Qatar warshadan ayaa waxaa lagu sifayn doonaa oo lagu soo saari doonaa maadada loo yaqaano sinkida oo ah maado muhiim ah warshadan ayaa ah warshad ugu weyn ee gobolkaas ku taala mashruuca warshadan ayaa waxaa ku kacay lacag gaaraysa 102 milyan oo dollar Erdogan ayaa sheegay in warshadan ay dabooli doonto kala bar baahiyihii maadada sinkida dawladda Turkidu u qabtay sidoo kale wuxuu sheegay in dawladda Turkigu ka maarmi doonto ku tiirsanaantii dawladaha shisheeye ee maadadan u soo dhoofin jiray Turkiga dawladda Turkiga ayaa 100% hadda dibadda ka soo dhoofsata maadada sinkida oo ah maado aad iyo aad muhiim u ah Erdogan ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay sanadkii warshadan ka heli doonto lacag gaaraysa 1 bilyan oo dollar sidoo kale wuxuu sheegay madaxweyne Erdogan in warshadan ay shaqo ka heli doonaan ilaa 3,000 oo qof oo Turki ah waayahay ma markii ugu horeysay oo la isku dayoba in la kharijiyo Erdogan oo la dilo maya marar dhowr ah ayaa hore la isugu dayay in la dilo oo uu dhammaan ka badbaaday qaybna laga hortagay sidoo ku waramay wargeyska UNICEF sanadkii 2012 ayaa Erdogan oo galaya mar qalin caafimaad la isku dayay in la kharijiyo laakiin qalinkan ayuu Erdogan baajiyay ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay isku daygan dil ayaa lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay wadaadka la yiraahdo Fathullah Gulen oo ah mucaaradka ugu weyn ee Erdogan leeyahay haddana mar labaad ayaa sanadkii 2016 isku daygii afgambi ee fashilmay ee ka dhacay wadanka Turkiga waxay dawladda Turkiga sheegtay inay gacanta ku dhigtay 3 ka mid ah 7 qof oo loogu talagalay in ay Erdogan ku dhex khaarijiyaan hoteelkii uu markaas ka deganaa magaalada Marmaris ee uu joogay haddana mar saddexaad sanadkii 2017 Erdogan oo booqanayay wadanka Greece ayaa la isku dayay in la kharijiyo oo la dilo sida ay xilligaas ku warantay warbaahinta wadanka Greece baaritaano la sameeyay ayaa lagu ogaaday in 9 xubnood oo ka tirsan xisbiga xoreynta iyo kacdoonka shacabka Turkiga ay qorsheeyeen inay kharijiyaan Erdogan qorshahan ay dhigeen ayaa ahaa in gawaarida Erdogan saaran yahay lagu weeraro gantaalo iyo bombo gacmeedyo booqashadaas uu xilliga Erdogan ku tagay wadanka Greece ayaa ahayd booqashadii ugu horeysay 65 sano kadib uu madaxweyne Turki ah ku tago wadanka Greece
maadaama turkiga iyo griiga dagaallo iyo khilaafyo adag oo ilaa hadda taagan uu dhex maray. haddana mar afaraad sanadkii 2018 Erdogan oo baaqasho ku marayay wadamada la isku yiraahdo Balkaniska. wadamada la isku yiraahdo Balkaniska waa wadamada kala ah Griiga, Albania, Bulgaria, Bosnia, Croatia, Serbia, Montenegro, Jamhuuriyadda Macedonia, Kosovo iyo Turkiga qudhiisa. ayaa Erdogan oo ku dhex jira booqasho uu ku joogay wadanka Bosnia. waxay muwaadiniin Turki ah oo ku noolaa wadanka Macedonia u soo direen sirdoonka Turkiga xooga xasaasiya oo sheegaya in la qorsheynayo in la dilo oo la kharijiyo Erdogan. baaritaano ay sameeyeen sirdoonka Turkidu ayay waxay ku sheegeen in isku daygan dil ay qayb ka ahayd markaas Israa'iil oo waliba Israa'iil ay soo dirtay dad u tababaran sida loo kharijiyo madaxda. dhanka kale website-ka lagu magacaabo Veterans Today ee dabagala arrimaha militariga ayaa sheegay in maamulkii Mareykanka ee xilligaas joogay ee uu hogaaminayay Donald Trump ay aaminsanaayeen inaysan Iran weerari karin ilaa ay Erdogan meesha laga saaro, yacni la kharijiyo. Erdogan markii laga takhalusana uu Vladimir Putin ku khasbanaan doono in uu joojiyo taageerada xoogga leh ee uu fidiyo Bashar al-Assadka Suuriya. sidoo kalena uu joojin doono Putin hubka uu ka iibiyo Iran maadaama uu waayay xaliifkii iyo garabkii gobolka ay iskaasan jireen waa Erdogan. su'aal yar oo kooban daawadayaas leedahay adigu isku daygii dil ee xalay uu ka badbaaday Erdogan uu ka dambeeyay iyo isku dayadii dil ee horaba. sidoo kale waxaan saaxiibayaal si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in haddii aad kanaalkayga hore u taxanaydeen aad like saartaan, haddii aad hadda ku cusub tihiinna in aad like iyo subscribe ay saartaan. sidoo kale waxaa jira page aan ku leenahay Facebook oo isla magaca kanaalka wata waa Yamyam Balaase, kaas oo aan si maalinle ah ugu soo gudbino dhacdooyinka dunida daafaheeda ka dhaca. waa mahadsantihiin, nooli kulantee, guuleysta.